أتيت أجر قطايا السنين أتيت إلى أرحم الراحمين وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليل بأن لديك شفاء العليل سألتك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. sidaa la socoteen waxaa inoo socotay Maryama calayha salaam ayaa inoo socotay. Maryama mataqaanaa way dhalatay. Markay dhalatay kadib waxaa loo baahday qofka faalaqaada. markaasa waxaa kulmeen reer bani Israa'iil culimadoodii ayaa kulmeen waxayna ku kulmeen qofkii mataqaanaa markaasi ka faalaqaadi lahaa. markaasa macnaha markii la wada tashtay kadib ayaa waxaa la soo saaray ra'yi ah in la qori tuurto. kadib yani waxaa bilowday qori tuurkii. waxaa la sameeyay qalimaan ayaa la soo aruuriyay. qalimaantii markii la soo aruuriyay waxaa lagu qoray qof kasta magaciisa ayaa lagu qoray qalin kasta yani mataqaanaa korkiisa waxaa lagu qoray qof kasta magaciisa inta meesha fadhisay oo rabtay macnaha inay kafaala qaado magacyadooda ayaa lagu wada qoray. kadibna waxaa la dhahay cunug yar oo waxba aan ogeyn oo sabi ah ayaa mataqaanaa meesha la keenay. waxaa la dhahay cunugan oo sabiga ah qalinkii oo bixiyo magaca ku qoran qofkaas ayaa kafaala qaadaya. kadibna cunugii markii meesha la keenay qalimaantii la isku dardaray oo hortiisa lagu fardhiyay wuxuu baxsaday qalinkii Zakariya calayhi salaam ayuu baxsaday. nabiyina Zakariya qalinkiisa ayuu markaasi oo baxsaday. nabi Zakariya markaasi wuxuu joogay wuxuuna kamid ahaa dadkii markaas meesha joogeen qofka ugu wanaagsanaa dadkii ugu fiicnaa ayuu kamid ahaa. laakiin nin kastaaba wuxuu rabaa fursadan inuu asaga ka faa'iideysto. sidaas darteed ayaa tartan looga galay. markuu qalinkii uu soo bixiyay Zakariya calayhi salaatu wasalaam qalinkiisa markuu soo bixiyay waxay ku dhaheen mataqaanaa qalinkan waa lagu celinaya ku celis waay macnaha ma soconaysa lagu dhahay ku celis waaye mar kale taa la qori tuuranaya. markii dooday dhacday kadib hayaa la dhahay waxaa la dhahay nahriga la tagaya wabiga la tagaya. kadibna macnaha waxa waaye qalimaantii wabiga lagu ridaaya. qalimaantii markii wabiga lagu rido qalimaantii wabiga macnaha uu socda dadkiis yani dhinaca u socda wabiga Soomahan yani majra waaxid u socda hal dhinaca u socda. marka wabiga qalinkii marka oo wabiga dhanka oo u socdo maahan dhanka kale qalinkii aada ayaa mataqaanaa asaga kafaala qaadaya Maryama ayaa lagu dhahay. kadibna waayahay dhaheen waxaa dhacday in qalimaantii lagu tuuray mataqaanaa wabiga dhexdiisa. waxaa dhacday qalimaantii wabiga kulli dhinacaan wada aadeen ilaa qalinkii oo nabi Zakariya calayhi salaam dhinkaan oo aaday. markaas ayaa mataqaanaa haddana la soo qabtay haddana waa diideen. waxay dhaheen ma soconayso yani qof kasta isaga isku raba dood iyo buuq waa jiraan mugta marmarka qaar dad waxaa jiro yani mataqaanaa buuqaya oo macnaha waxaan majac ma soconayso dhahay waa jiraan meel kasta macnaha waxa waa dad oo silbi ah jiro. markay buuqi dhacay haddana dhacday waxaa la dhahay haye haddana qalimaanta la tuuraya. waxaa la dhahay waa la tuuray haddana markii qalinkii la tuuray nafsal xikaaya dhacday. haddana qalinkii waxaaba dhacdayba cagsi bilcagsi dhacday. qalimaantii inta u socdeen waxay aadeen dhinaca oo hadayto qalinkii oo mataqaanaa nabi Zakariyana wuxuu aadayba dhankii biyaha u socday ayuu aaday. yani way yaabeen dadkii markii taas ay dhacday. yani macnaha meesha waxa ka cadaatay inuu Ilaahay uu la rabo inuu Zakariya yani kafaala qaado Maryama ayaa meesha mataqaanaa isaga loo rabay. alxamdulillah marka Ilaahay quraankiisa wuxuu ku tilmaamayaa wuxuu leeyahay fataqabbalaha rabbuha biqubulin hasan. فتقبلها ربها إلهي وكأقبلي دعادي أي كدعيسني سحنة بنت فاقودة أو أهيت إن قبل هذا الشيطان إلهي كبد باديو عنقي أوبط كأذن أو كبد باديو متقارن الشيطان إنه سنتابانين إذا نبض قبت أدونك ما دو معناها يعني سيئو في سبلنت هذا إلهي كبر إذا ما هو إلهي هو أقبل مركا فتقبلها ربها بقبول حسن يعني أقبلت أو آد ونقبلا أي الله يعني والله أقبلي يعني
يعني متقانا سي يعني وحواي إلهي وحوسيي قبر آد وقروح بدن قبر متقانا سليم أو عيب إنسان لهين أي إلهي سيي أو متقانا إشي أركيسا كدوك سنسا أو كفرحيسا أي إلهي سيي وحاكا لو إلهي أو قدري إن أي كبر بارتو تربية وناكسن هداية وناكسن إنه إلهي أو سيي. وبعدين waxaa lahay wa ambataha nabatan hasanan ilaahay wuxuu ka dhigay gabar aad u qurux badan oo nadiif ah oo akhlaaq iyo yani diin qaadatay yani si wanaagsan ku barbaartay laga wada macna wa kafalaha zakariya wa kana marka zakariya markaas kafaala qaaday isaga markaas qalinkiisa soo baxay isaga markaas yani balan qaada Allah marka zakariya ayaa haayay isaga markaas barbaarinayay yani matqana wa ahsana ta'dibaha يعني التأديبية علمي أسوي كجري أيوة متقانا مريم أو كشوي آدي أنا حكسو صاري قف أو متقانا لسان حق الدين يعني حق الدين تقف كلسان أيوة كدقوا معنا مريم محب الأرض وقدميني سي بيت الله المقدس إلهي بيت كيس وقدميني سي ayay bilowday waxay gashay sawmacadeeda ayay gashay macnaha nabi zakariya wuxuu u sameeyay mowlac yar ayuu masaajidka meel kamid ah dhanka mixraabka xagiisa oo ugu sameeyay sawmac yar ama mataqaana meel yar oo mowlac ah meeshaas ay mataqaana ku cibaadeysan jirtay maryama masaajidkii yani mataqaana ay gacanta ku qabatay yani u khidmeyntiisa in ay mataqaana wixii ilaahay baray ay mataqaana dadkii kale ay barto ay dacwadii iyadan dhinaceeda ka sii ay gudbiso ayay bilowday maryama waxa dhacday marka waxa dhacday qisiyaro yaab laha dhacday wax yaro yaab laha dhacay waxa dhacday maryama markuu uu nabi zakariya oo kafaali qaaday wuxuu ahaa marka mid soo booqda markastuu soo booqan jiray nabi zakariya markastuu control jiray ilaan gabadhiis waaye yani xaaladeeda soo ogaan jiray sidee ku bariiday yani mataqaana iyadana baariyada aheedo yani qof oo mataqaana hooyadeed baari oo aheed mataqaana hooyadeedii way ka dhimatay kadib waxa waaye nabi zakariya gacanta ku haayay yani waxa waaye aad u control jiray wuxuu u noqday waalidkii labaad oo noqday mataqaana si fiican oo tarbiyay markuu control jiray maalin kasta say ku bariday xaaladaada ka waran ay u tagi jiray wax ma cuntay ma baahan tahay يعني وكنترول جري مركز تو اسمه بحث صفيري أما باهن تايبا كلما دخل عليها زكريا نبي زكريا مركز تو اسمه بمعناها صفيري حالة هذا وجد عندها رزقا وحرك جري عنتا أو هرتالا عنتا هرتالا عنتا عنوسا cuntadii ee horteeda taalo ee cunuusana ma ahan cunto oo mataqaana waqtiga xilligaas la helay ma aha yani tusaale ahaan xilliga qaboobaha yani waxa jiro cunto oo mataqaana oo la helo oo kuleelaha yani macnaha waqtigiisa aan la heleynin waxa jiro cunto oo waqti kuleelaha oo la helayo oo waqtiga qaboobaha aan la heleynin marka cuntadii waqtiga qaboobaha la weynay ay waxay cunuusaaba hadda justina way cunuusaa يعني الله كينايا cuntadii oo kuleelihii la weysana oo la weysana waxay cunay qabowihii cunto la weysana waxay cunaysaa mataqaana kuleelihii marka uu yaabay aad u yaabay cuntadan marka wuxuu dhahaa marka wuxuu leeyahay قال يا مريم أن لك هذا عنتدا أنت كنت عنتدا ما بله هلايا عنت له هلا ما بأهنه أنت كنت ساسو يجري قالت مركزا وحيل هي هو من عند الله إلهي أكتيس على كينايا جنة على كيناي إذا دونك جوكتو أيا جنة على خود جري مريم عليه السلام يا إذا دونك كوركيس جوكتو أيا متقنا جنة على خودنا taas macnaheedu waxa waaye qofka ilaahay mukhlis u noqda adoonka ilaahay mukhlis u noqda mustaqiim noqda istiqaamada qaata ilaahay mataqaana oo arsaaqaya ya waman yattaqillaha yarzuq yani waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ninki ilaahay ka cabsado yani ilaahay makhraj ayuu sameynaya yani meel oo asaga mataqaana oo san filinin ayuu ilaahay ka arsaaqaya يعني وحسن أوجين أي إلهي سينا يا واي وعطنا مريم عليه السلام يعني سيدا أي حالة ده تهي يعني أنت عن وقت كاس لهيلين أي مركزي أي عنيسا واي وقت كاس وقت الحاضر كاس
ina allaha yarzuqu man yashaau bikhayri xisaab. ilaahay qofkuu doono xisaab la-aan ayuu wax siinaya waaye. ma fahamte? marka maryama marka waxaa waaye yani sidaas ayay ahayd. ilaahay marka wuxuu ku ammaanay wuxuu ilaahay u soo diray marka maryama malaa'ig ayuu u soo diray. markastaba macnaa ilaahay ku mahadin jirtay, yani cuntada loo keenayo يعني الحمد لله إلهي متقانا وإكرجريا إلهي مركز معناها ماشي عنه يقصيا يعني ضيعين أي لا هاي هكولولين يعني أبو ذكري أبهد عمله ونقضي مركا أبو هكولولين أنا جها يقولولين سس إيه جرته مركز متقانا إلهي وصادر الملائكة أي وصادر إذا متقاس إذا معناها إذا موضع هذا كجرته ملائكتي أي أو إمادي ملائكتي محي وضع مركا بشارة أي وضع بشارة أي وضع وحيل هاي وإذ قالت الملائكة يا مريم يعني وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين إليها معناه يا مريم يعني ما تقالنا إن الله اصطفاك الله قدرتي إليها وطهرك إلهي يا قطهري واصطفاك على نساء العالمين عالمينتا hablaha jooga kale ilaahay uu ka fadilay yani haweeney oo waxa laga dhigay oo ugu fadli badan haweeneydii ugu fadliga badneed adduunka ayay ahayd maryama yani ma taqaan ilaahay wuu dahiray ilaahay wuxuu ka dhigay cafiifa yani ma ahayn qof banaanka aada qof warwareegta ma ahayn qof oo cawradeed banaanka soo dhigta ma ahayn qof isqaawisa ma ahayn qof oo ma taqaanaahe oo yani tabarruj sameeyo banaanka baxbaxada ma ahayn yani qof ilaahay u go'day ayay ahayd muxuu ilaahay u dooran marka inna allaha astafaaki وطهرك واصطفاك على نساء العالمين ساسا لليه مركا markaasa waxa la leeyahay hawsha awdid hawl fiican waaye maryamaay waxa la leeyahay ya maryamo ukhnuti li rabbiki wala damo marka malaa'igtii ilaahay u soo dirtay ayaa matqaana la joogta maryama waxay la leeyihiin markaasi yaa maryamaay ukhnuti li rabbiki yani rabbigaaga matqaana u qushuuc wasjudi sujuudo warka'i ma'a raakiciina salaada duko yani warka'i ma'a raakiciin dadka rukuuca la tuko yani matqaana dadka rukuuca nabi zakariya iyo asxaabtiisa la tuko dadka tukanayaan la tuka la leeyahay marka sidii matqaana maryama ahayd ee ku cibaadeysan jirtay howlaheeda ee u wadatay yani matqaana xaaladda maryama saas ay ahayd ilaa ilaahay bishaaradiisa ay ugu imaado insha Allah taala qisadii kale dhalashada insha Allah taala nabiyina Isa alayhi assalatu wassalaam ka sheekeen doonno ayaa mataqaana ku xusi doona haduu ilaahay dhaho hadana inta ayaan ku gaabsanaynaa waa inoo xalqa kale insha Allah taala wasalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh أنت الذي تقل الذنوب